بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeyso aniga magacayga waxa la yiraahdaa Ahmed Maxamed Weheliye waxaan ku dhashay magaalada Buuloburta oo ka tirsan gobolka Hiiraan sanadka 1943 halkaas ayaan wax barashadii dugsiga Quraanka ku bilaabay anoo 6 jir ah markii aan Quraanka 2 jeer naqtimayna waxaan ku biiray dugsiyadii berigi gumaysiga uu sameeyay oo waxaan ku bartay dugsiga hoose ee Buuloburta waxaan bilaabay 1954 wax barashadii halkaasaan dugsiga hoose ku dhameystay dalka dhan dugsi dhexe kama jirin magaalada Xamar oo kaliya oo ka jiray dugsiga bartamaha waxa la jir berigaas iskool media centrale halkaasaan dugsigii dhexe ka galay wax barashadii dugsiga dhexe markii aan dhameystayna waxaan galay dugsiga معهدك معلمينته واللي يراهدو ماجسترال هالكاس وان كقلن جبيه كون يسقال بقول إيو لحدن إيو شنتي كدبنا واحد نقضي معلم برا دوكسيغا هوسه ديغو كون يسقال بقول إيو لحدن إيو شنتي أيان بلابي إنا نقضو برا دوكسي هوسه شقاده waxaan ku bilaabay degmada Afmadow kadibna waxaan ka shaqeeyay dugsiyo badan oo ka tirsan Hiiraan Muqdisho oo aan ka shaqeeyay kabacdina waxaan galay jaamacadda ummadda waxaan bartay faculty waxaan galay dhaqaalaha halkaas oo aan ka qalin jibiyay 1974 jaamacadda ummadda waxaan noqday macallin dugsiga sare kadibna waxaan noqday maamulaha dugsiga sare ee aqoon dirsadka kadibna waxaan noqday gudoomiyaha polytechnicada halkaas ayaan fieldiga wax barashada ka wadi jiray wax barashada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo midowga ka dhalatay 1960kii wax midoobay goboladii waqooyi gumaysan jiray Ingiriiska iyo goboladii koonfureed oo Talyaaniga gumaysan jiray nidaamka waxbarashada labada gobol waa kala duunaayeen midna waxbarashadiisa waxa saldhig u ahaa Ingiriis iyo Carabi midna waxa uu ahaa saldhigiisa waxbarashadiisa Talyaani iyo Carabi Talyaaniga muddadu dalka haystay wuxuu diyaariyay muddada 10 sano ahayd oo transiibka ahayd oo Talyaaniga loo dhiibay in Soomaaliya gaarsiiyo xorrimo una diyaariyo dad hana karo xorriyad inay noqdaan wax lagu dhigi jiray afka Talyaaniga maadooyinka oo dhan afka Carabigana waxa lagu dhigi jiray luqada Carabiga luqad ahaan iyo diinta sidaas la mid ah gobolada waqooyi waxa lagu bar jiray afka Ingiriisiga Carabiga iyo diintan waxay ahaayeen nooha ayagan waa la dhigi jiray laakiin labada curriculum waa kala duwanaayeen midna Ingiriis ku saleysna midna Talyaani ku saleysna markii xorriyada la qaatay 1960kii Talyaaniga wuxuu diyaariyay macallimiin ka soo baxday wuxuu u diyaariyay inay noqdaan macallimiin dugsiyada dhigo ilaa tiro 5,000 oo macallin ayuu diyaariyay muddadii uu xukunka Talyaaniga hayay Ingiriiska si la mid ah wuxuu ka furay waqooyiga dugsi lagu tababaro macallimiinta markii labadii gobol Israaciil oo ku midoobeen Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa dhacday wasiirkii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta oo beriga oo ahaa Allah u naxariistay Cali Garaad Jaamac wuxuu sameeyay siyaasad aad meel ku dhac ku noqotay dadka reer koonfureedka ah sababtoo ah waxa la soo saaray in wax lagu barto afka Ingiriisiga macallimiintii Talyaaniga uu diyaarin af Talyaani ayay lagu diyaariyay marka waxa dhacday macallimiintii afka Talyaaniga waxa ku dhigaysay suuragal uma noqonin inay macallimiin ka noqdaan
dugsiyadii ay ku dhigaan af ingiriis sidaa darteed macallimiintii muddadii 10 sano oo Talyaaniga diyaariyay boqolkii 80 in ka badan waxa lagu wareejiyay ciidamada ومركي دم waxay saraakiisha ciidamada saldhigoodii waxay ahaayeen macallimiintaas dugsiyadii marka yaa waxa u dhigayo markii laga soo bilaabo Looya Cadde ilaa Raskamboni wixii dugsiyo ku yaale ardadii dhiganaysay macallimiin waxa u dhigta waa la waayay sababtoo waxa way macallimiintu waqooyi ka soo baxdo si TCC ka soo baxday dugsiga macallimiinta waxay macallimiin tirayar oo aan muxuu ahaa koobi karin inay macallimiin ka noqdaan dugsiyada sidaas waxa dhacay dib u dhac ayaa ku yimid waxbarashadii gobolada Koonfureed oo macallimiin ayaa loo waayay nidaamkaas ah in afka Ingiriisiga lagu dhigo dugsiyada hoose oo lagu bilaabo fasalada koowaad sidaasna u socdaan waxa barbar socday dugsiyadii horay afka Talyaaniga loogu dhigayeen in la sii wado oo af Talyaaniga lagu wado hase yeeshee macallimiintii kuma filnaanin dugsiyadii afka Talyaaniga waxa lagu baranayay in ay buuxiyaan kuma fil bacdama badankooda ciidamada lagu wareejiyay dhibkaas marka wuxuu marka sababay in dugsiyo macallimiin loo waayo ayaa dhacday arrinkaasna wuxuu buuq iyo muxuu ahaa dhibaato wuxuu ku noqday dugsiyadii gobolada Koonfureed Talyaaniga oo berigaas ka xanaaqay in waxbarashadii afka Talyaaniga meeshii laga saaro berigaasna waxa la furay oo heshiis laga galay dawladda Mareykanka oo furtay dugsiga la dhihi jiray Entech Teacher Training Center oo dadka ka soo baxay af Ingiriis wax ku barteen sida darteed Talyaaniga kaalmadu ka sii jiray Soomaaliya oo dhinaca waxbarashada ka sii jiray uu joojiyay arrinkaasna wuxuu noqday caqabad weyn oo hor istaagtay waxbarashadii dadka Koonfureed arrinkaas markii ay dhacday waxa wasaaradda waxbarashada waxa wasiir ka noqday nin la yiraahdo Keenid Axmed Yuusuf oo wax ku soo bartay Talyaaniga wuxuu isku dayay inuu dawladda Talyaaniga ku qanciyo in ay waxbarashadii ay kaalmadii ka sii jirtay Soomaalida waxbarashada ay macallimiinta u soo diri jirtay in ay muddo sii wado ilaa ardada dugsiyada sare ku jirto ay ka baxaan ay dhameystaan sidaasna uu ku guuleystay Talyaaniga wuxuu ogolaaday inuu u soo diro macallimiin dhameystirto dugsiyadii sare sidaasayna muxuu ahaa ay noqotay dhibaatada kale waxa muxuu ahaa ka dhacay waxa waaye oo aan rabaa inaan meeshan ka xuso markii intag la sameeyay waxa gali karay nin af Ingiriis wax ku soo bar dugsigiisii hoose dhexe dadka Koonfureedna waxa Ingiriis wax waxay ku barteen muxuu ahaa Talyaani markii dugsigii macallimiinta lagu diyaarinay dadka galay waxa dad muxuu wax ku soo bartay af Ingiriiska oo qoyi ka yimid haddana isla markaa tirayaradii macallimiintii sidii u socotay sababtoo ah dadka ka soo baxay dugsiyada dhexe ka soo baxay waqooyiga haddii macallimiin noqdaan oo ay galaan intag ay noqdaan haddana tira ahaan ma buuxi karaan baahidii dugsiyadii muxuu ahaa hoose dhexe Koonfurta marka waxay noqotay in la sugo in baahida laga baxo in ardadii Koonfurta af Ingiriis waxa ku baratay markay dugsiyada dhexe ka baxeen ayay u soo galashay inay galaan bacadkaas macallimiinta lagu diyaarinay marka waxa dhacay gaab fara badan ayaa ka jiray meeshaas oo macallimiinta waqooyiga ma buuxi karin baahida gobolada waqooyi iyo kuwa Koonfureed waxa jira markii muddadii laga soo bilaabo 60kii ilaa 69kii dhibaatada waxbarashada waa taagneed oo waxa jiray ardadii ka soo baxday dugsiyada dhexe waxay waayeen
meel ay wax ku bartaan oo dugsiyo sare ma lahayn dalka oo dhan kacaanka ka hortiis waxa ka jiray dugsi muxuu ahaa sare waxa ka jiray dugsigii Sheekh Xasan Barsana la dhihi jiray iyo banaadir oo ruushka muxuu sameeyay iyo dugsi ku yili Jowhar oo mishinka oo lahaa iyo sanawiyada muxuu masaarida ayaa ka jiray ardadii faraha badan oo ka soo baxay dugsiyadii dhexe waxa ku dhacay dugsi la'aan xamar waxa ka dhacay muxuu ah strike ay ardada sameynayeen ay leeyihiin waa inaan helnaa meel aan wax ku barano waxa la ijaaray meel ku taalo muxuu ah xamar weyne oo nin la yiraahdo marxuum geeriyooday Xasan Cabdi Camalow ayaa dugsi sare gurihiisii laga dhigay waxa la jiray meediiso barar istakato dalka marka wixii arday ahaa oo muxuu ahaa ka soo baxay dugsiga dhexe badankooda iskuul waa waayeen markii dambana qaarkood waxa loo diray dugsigii farsamada ee Burco sidaas darteed waxbarashadii hakad weyn ayaa galay laakiin kacaanka markuu dalka qabsaday wuxuu isku dayay inuu dugsiyo badan furo waxa uu muxuu ahaa nidaamka la yiraahdo waxbarashada khasabka uu soo saaray oo ardayka cunug walba oo da'da 7 jir ah inuu helo waxbarasho ayuu ka shaqeeyay dugsiyo waxa la sameeyay khasabka la yiraahdo oo meel kasto laga dhisay ardaydayna waxa khasab ku ahayd inay ila dugsi dhexe waxbarashada waxa ahayd obligatory khasab ahayd inuu barto kacaanka markaa wuxuu dhisay dugsiyo fara badan oo ka dhisay gobolada halkii xamar loo wada imaalaha gobol kasto ee Soomaaliya ku yeelay dugsi dhexe dugsi sare iyo dugsiyada hoose hore u jira ayaa laga sameeyay marka horumarkaas dhinacaas waxbarashada wax badan laga qabtay kacaanka waxa hawsha uu qabtay aad muxuu ahaa u sii xiisigeli waxay ahayd go'aankii ah in afka Soomaaliga la qoro oo waxbarashadii la Soomaaliyo go'aankii 72kii kacaanka oo gaaray oo inay wax muxuu ahaa afka Soomaaliga la qoro waxbarashadii in la Soomaaliyo waxay u furtay muxuu ahaa ufuq horizontal waxay u furtay waxbarashadii qof walba oo da'di waxbarashada gaaray oo Soomaaliya iyo kuwii hore waxa ugu bartay afka qalaad oo afkoodii hooyo muxuu arkayo in ay wax ku bartaan wixii aqoontoodii horena ku Soomaaliyeen afka Soomaaliga markii la qoray oo la yiri af Soomaali muxuu waxbarashadii hala Soomaaliyeeyo waxa la raadiyay muxuu eray bixino in loo helo mustalahaadkii muxuu ahaa afka Ingiriisiga ama Talyaaniga ama afka Carabiga ku salaysna tusaale ahaan markii aan soo qaadano annaga markii aan dhiganaynay muxuu ahaa waxbarashadayna meeshan wax ku barno waxa la dhihi jiray iskoola ama iskool la dhihi jiray ama madrasa erayada marka schoolna wuxuu ahaa eray Ingiriis ah iskoolana wuxuu ahaa af Talyaani madrasana waxay ahayd afka Carabiga marka aan mustalahaadkaas soo qaadano school waa meel dhisan ama meel wax lagu barto iskoola markii aan soo qaadano waa meel wax lagu barto madrasadana waxay ka timid erayga la yiraahdo darasa oo ah baro ama bartay marka makaanka wax lagu bartana waxa la yiraahdaa waa mustalax la yiraahdo madrasa meel wax lagu barto erayadaas marka afka qalaad markii la damcay in Soomaali loo bedelo waxa la soo qaaday eraygii Soomaaliga ahaa oo ardadii dugsi quraan aadaysay meesh wax lagu barto meeshaasna waxa Soomaaliga u yaqaan dugsina waxa loo yaqaan meel dhaxanta laga galo oo waa ogtiino dadka Soomaaliyeed ilmaha markii wax baranayeen dhismo wax ku barajan waxa ku dhijin meel ood ah oo la sameeyay oo qabowga laga galo
ereyga marka dugsi wuxuu ka yimid meeshaas oo ah meel qabowga laga galo oo ay wax lagu baro ilmaha quraanka ereyga marka dugsi wuxuu bedelay ereygii la dhihi jiray school ama iskoola ama madrasa ereygaas wuxuu ahaa mustalax cusub oo ku soo biiray afka Soomaaliga waxa kale oo ku soo biiray wasaaradda waxbarashada markii loo bixinay ka hor waxa la dhihi jiray wasaaradda tarbiyada iyo tacliim carabi ingiriiskana wuxuu dhihi jiray Minister of Education talaalka wuxuu dhihi jiray Minister Permission Republic arrinkaas marka loo bedelay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta waxa laga bedelay terminolojiga carabiga ah wasaaradda tarbiyada iyo tacliim marka wax la barana marka wax la tarbiyeyna marka hore waxa horeeyo tarbiyada ka bacdi ayaa tacliinta wasaaradda marka ereyga haddii Soomaali loo bedelo wasaaradda barbaarinta iyo waxbarashada waxa ka macaanaaday wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta laakiin labadooda ereyga waxa horeeyo barbaarina horeysa inta wax la baran ereyadaas ku soo kordhay waxbarashada oo ah wasaaradii lafteedii wax lagu baranay hadii la wasaaradii waxbarashada ereyga waxbarasho markii loo bedelo carabi waxa leedahay ta'allum ama ta'liim oo ka timid markii hore ereygii aha allama ama alima ka bacdina ta'allum u bedeshay marka wasaaradda waxbarashada ereygaas carabiga ayaa laga bedelay barbaarintana waa tarbiya marka ereyadaas aad iyo aad ayaa loo helay mustalaxaadkaas carabiga in loo helo mustalax ama erey bixin sax oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku sheego dalka jaamacadihii ugu horeeyay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed laga furay 1970 ka horna waxa jirtay muxuu ahaa jaamacad bar ah ayaa lagu dhigi jiray Soomaaliya oo 2 sano markii la ka bacdina qofka wuxuu aadi jiray Italy halkaas ku soo dhamaysan jiray kacaanka wuxuu ku dhawaaqay in laga baxo arrinkaas oo jaamacad la sameeyo kaalmada uu Talyaaniga sii jiro scholarship dadku u shaqo kharashka ku baxay wuxuu yiri waxaan uga baahanahay in dalka jaamacadna laga sameeyo waana lagu guuleystay arrinkaas ayaa wuxuu keenay in dad badan oo dadka aqoonta hadda leh waxay ka soo baxeen jaamacadahaas fakultooyinka badnaa oo la furay kulliyad fara badan la furay kulliyadda waxbarashada oo la foolahayd kulliyadda dhaqaalaha kulliyadda sharciga kulliyadda beeraha kulliyadda muxuu ahaa xanaanada xoolaha kulliyadda muxuu ahaa sayniska arrimahaas oo dhan kacaanka ayaa furay waxbarashadaas aad loogu guuleystay burburkii marka aan soo galno su'aashaada aan u soo gudbo burburkii markuu dhacay waxbarashadii afka Soomaaliga ku bixi jirtay ama afka Talyaaniga ku bixi jirtay jaamacadaha ku bixi jirtay waxbarashadii waa burburtay nin walbana wuxuu isku dayay inuu waxbarasho inuu yiraahdo dadka Soomaaliya waxbaan bara asigoo markaas ka soo qaadana curriculum kala duwan hadba dadka ay xiriir kala leeyihiin arrinkaas marka wuxuu meesha ka saaray waxbarashadii nationalka ahayd dadkii Soomaaliga ah oo afka Soomaaliga 1972 loo dhigay oo loogu talagalay in lagu adkeeyo muxuu ah Soomaalinimadooda ayaa waxa laga saaray nationalismadi ku abuurneed dadka oo ah in af Soomaali wax lagu barto qaarkood waxay keeneen curriculum Ingiriis ah qaar waxay keeneen kuwa Carabiga waxa intaas sii daran kuwa Carabi oo dawlado kala duwan ah kuwa Ingiriis oo dawlado kala duwan iyo afkii Soomaaliga oo meesha laga saaray marka waxbarashadii dalka dib weyn ayaa haysto haddii dawladda muxuu ahaa qaran oo dhisan hadaysan u helin hal oo afkii Soomaaliga ahaa afkii Soomaaliga uu san noqon afka waxbarashada
hadduu saldhig u noqdo dadkii dhalinyaradii hadda dugsiyadu ku jirto waxay noqonayaan kuwa aan la soconin dalkooda wuxuu yahay sababtu waxa weeye juqraafiga la baraa iyo taariikh la baraa wuxuu ku salaysan yahay taariikhdii dowladihii laga soo minguuriyay curriculumkaas marka dhib weyn ayaa taagan haddii aan la helin waxbarasho dadka ka dhaxayso oo aan la soo celin waxbarashadii publican ahayd dadka dhan lahaayeen haddii aan la soo celinin dalka wuxuu noqonaa dal xaalkiisa oo noqdo dal minguuro taariikh iyo wadanimo aan lahayn marka arrinkaas aad iyo aad ayuu dhib u leeyahay dowladdan ilaa haddeer kuma dhaqaaqin inay waxbarasho dadweynaha ka dhaxayso u samayso oo bilaash ah ama ha noqoto xitaa waxbarasho lacag ah laakiin waa in ku salaysnaa curriculum Soomaali ay leedahay oo qofka wadaniyad ku dhisi karo mashaakilka taagan waxa waaye dadka Soomaaliyeed oo qurbaha joogo haddii ahaa lahaayeen dad hal meel wax ku bartay ama af Ingiriis wax ku barteen ama af muxuu ahaa French wax ku barteen ama Iswiis wax ku barteen haddii ahayn dad is afgaran karo waxaan dhihi lahaa wax weyn tar lahayeen seminar ayaa loo sameeyay lahay oo muxuu ahaa lagu abuuro muxuu ahaa nationality Soomaaliyeed inay waxbarashadii muxuu ahaa ay waxay barteen in loo Soomaaliyeeyo arrinkaas horta wuxuu u baahan yahay in institutionooyin laga furo dalka ayagii waxbarashadoodii la Soomaaliyeeyo seminaaro fara badan la siiyo si u noqdaan dad wax ka qayb gali karo inay horumariyaan dalkooda marka dhinacaas waxa way dhinacii dadka qurba joogta oo wax bartay markii aan u noqdo dadka gudaha joogo kama duwana in ay Soomaali joogaan oo af Soomaali ku hadlaan kama duwana muxuu waxbarashadii ay qaateen oo lagu bartay muxuu ahaa luqooyinka lagu bartay kama duwana ayaga wax ku bartaan qaar af Ingiriisi ku bartaan qaaf Carabi ku bartaan in la Soomaaliyeeyo ayagana waa loo baahay marka hawshaas waxay u taalaa xukuumadda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta in ay waxbarashadii tay ahaan ka hadli maayay waxaan ka hadlaa waxbarashadii in horta la Soomaaliyeeyo marka ka bacdi la tayi karaa horta waxaan isleeyahay waxbarashadii Soomaaliya horumar hore horta horumar weyn ay sameysay burburkiina dib u dhac ku yimid dib u dhac markii aan soo qaado gudahane dugsiyo malaho ardadii da'di waxbarashada gaartay markii hore waxay heli jireen waxbarasho bilaash ah oo dawladda bixiso hadda waxbarashadii waxay ku xirantay in qofkii lacag iska bixi karo inuu wax barto marka tira yar ayaa dugsiyada aado marka waxaan dhihi lahaa dawladda xil weyn ayaa ka saaran in waxbarashadii lacag la'aanta ee dalka ka jirtay in la soo celiyo dadka waxbarashada ka dhigtay maharad ah sidii ganacsiga inay ku ganacsadaan muxuu ahaa dugsiyada ay furaan in ay isku dayaan cala aqal hadaysan waxbarashadii muxuu ahaa lacag la'aan ka dhigi karin inay dadka muxuu ahaa masaakiinta ah inay ururiyaan qaarna ay muxuu ahaa waxbarashadooda lacag la'aan ka dhigaan qaarka iska bixi karana lacag dheeraad ah ay saaraan si ay ganacsigoodii muxuu ahaa waxbarasho ugu meel maro.